xisbiga kulmiyeed Norway ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ka qaatay dejinta sicir bararka. Waxaana hambalyo iyo taageero buuxda u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay sidoo kale soo dhaweeyeen in la isticmaalo shilin Soomaaliga Soomaaliland. waxaana ugu horeyn halkaa ka hadlay afayeenka xisbiga kulmiyeed dalka Norway waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigoo ah Faysal Abadiid kuna hadlaya magaca gudida kulmiye wadanka Norway waxaana halkan hambalyo iyo bogaadin aan uga jeedinayaa go'aanka geesinimada leh ee ay u qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisuba ay ugu saacidayaan ummadda tabaalaysan ee ay aafeysay abaaraha iyo wixii la mid ah taas oo aynu madaxweynuhu u qaatay go'aan taariikhi ah oo uu kaga jawaabayo baahida dhabta ah ee taala maanta Soomaaliland dhexdeeda taasi oo aan ugu hambalyeynayno haddii aanu nahay gudida kulmiye ee wadanka Norway waxaanu leenahay waa go'aan geesinimo waa go'aan ummaddu ay u baahnayd in loo asteeyo taas waxaanu kaga jawaabaynaa oo leenahay hambalyo waxa ayana halka ka hadashay garabka haweenka xisbiga kulmiye dalka Norway Maryan waxaana hadaladeedii ka mid ahaa Maryan Maxamuud Cali gudoomiyaha garabka haweenka ee Norway dhaweynaya oo taageeraya go'aankii uu madaxweynaha iyo wasiiradiisu geesinimada lahayd ee madaxweynaha wasiiradiisu qaateen ka qaateen mushkiladihii muddada faraha badan wadanka ka taagnayd ee sicir bararka waqtigan oo loo baahnaa oo waqtigeedii timi oo ay dadku dhibaataysan yihiin oo abaaro bahsani wadanka ka jiraan go'aankaas geesinimada leh madaxweynaha iyo wasiirada iyo dawladda Soomaaliland aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waana soo dhaweynayna waana taageersan Maxamed Jaamac Dhiif TV qaranka Oslo Norway